سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا لا كعدن جنل كحكمة تيوب هي يوتيوب كسر دوذا مقالس نايكي وشركة أوين أساس دharka سبورتسكا iyo kabaha guud ahaan caalamka konton sano gudaheed ayuu ku xaqiijiyay in riyadiisu ay ahayd si uu heli lahaa kaba u xidho oo wanaagsan riyadiisaasna wuxuu ugu bedelay shirkad qiimaheedu dhan yahay $100 bilyan maanta waxaan dib ugu noqonaynaa taariikhdii hore ee shirkadda Nike si aan u soo aragno ama aan u aragno sida uu dhacay arrinkan cajiibka aanan isla ogaana sirta ka dambaysa guusha shirkaddan aadka u tunka weyn dib aan ugu wada noqono 1962 sanadkan lagu magacaabo Phil Knight ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Stanford waxa uuna waajahay dhibaato kasta oo waajaho arday ka soo qalin jabiyay kulliyadda business management taasoo ah inuu bilowdo qofku mashruuc u khaas ah badanaa ardayda soo qalin jabisa ma helaan fikrado laakiin Phil uu ka duwanaa oo wuxuu helay fikrad aad u cajiib ah wuxuu ahaa mid orodada dhaadheer ee jaamacadda mid kamid ah muxaadarooyinka uu ka qayb galay ayaa wuxuu qortay note yar waxa uuna ku qoray sida uu la cajabsan yahay kaamiradaha Jabaaniiska ee suuqa ka saaray kaamiradaha Jarmaniga ee ku faafsanaa guud ahaan Amerika isla markaana wuxuu isweydiiyay in ay kabaha Jabaaniisku sidoo kale ka saari karaan suuqa kabayaasha kale ee Puma iyo Adidas xilligaasna Puma iyo Adidas waxay hayeen calaamadaha ganacsi ee ugu tunka weyn leh waqtigaas Mareykanka markuu ka qalin jabiyay Phil jaamacadda waxa ka gooneed inuu soo dhoofiyay dalka Mareykanka inkastoo uu haysan kaba sporty Japanese laakiin wuxuu ku arkay askar qaar oo wata kaba Japanese markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka ee ciidamada Mareykanku ay joogeen Japan laakiin yaraanshaha kabaha Japanka ee yaala Mareykanka oo aad u yaraa waxay Phil u ahayd fursad aad u weyn Phil oo tawarkii fursad wacan oo laga faa'iideysan karo ayaa markii taariikhda 1962 waxa uu safray dalka Japan si dalxiis ahaan ayuu ugu safray wadankaas intii uu joogay dalxiiska ayaa wuxuu soo indheeyay aadna u soo diraaseeyay wax soo saarka Japanka inta uu joogay magaalada Kobe ayaa waxa ishiisa soo jiidatay dukaan kaba lagu iibiyo dukaankaasna waxa lahaa shirkadda kabaha ee Onitsuka Tiger ee laga leeyahay dalkaas Japan kabaha ay xilligaas sameynayeen waxay ahayd kaba tayadoodu aad u sareysa marka loo waqtigaas taasoo Phil ku dhalisay in uu yiraahdo waxaan ahay kaba qaybiye ama kaba suuq geeye Mareykan ah sidaasna waxay ugu ogolaadeen inuu kulan la yeesho gudoomiyihii shirkadda maalmo gudahoodna wuxuu Phil u noqday shaqaale shirkaddii ee dalka Mareykanka 1963 waxa uu helay kabihiisii koobaad oo ka kooban 12 beer isagoona bilaabay in uu ku soo bandhigo garoomada hortooda iyo meelo magaalada ka mid ah isagoo kuna iibinay gaarigiisa xaqiisa dambe laakiin istiraatiijiyadda uu adeegsanayay way shaqayn weeyay waxayna ku kaliftay inuu u tago qof isaga ku cilmi dhaama qofkaasna qof kale maaha waa coachkiisii hore ee jaamacadda oo ahaa mid khibrad dheer u leh kabayaasha sportiga Pin Bauman lagu magacaabi jiray Pin xilligaa wuxuu ahaa mid ka mid ah coachka ugu caansan ama tababarayaasha ugu caansan jaamacadaha Mareykanka waxa uuna tababar siiyay laacibiin badan oo u soo dhashay ama matashay Olombikada Mareykanka Phil waxa uu ka helay kabaha uu sameeyay Phil taasoo ku kaliftay inuu mashruucaasna qayb ka noqdo uu share ku yeesho markay taariikhdu ahayd 1964 Phil iyo Phil waxay aasaaseen shirkad lagu magacaabo Blue Ribbon Sports isagoo mid walba maalgashtay lacag dhan $500 waxaana lagu kafargareeyay lacagtaas dalabyada cusub waxayna dib u soo iibsadeen kabayaal la siinay $3.3 ama kabadhan $300 beer sanadkoodii koowaad Phil iyo Phil waxay iibiyeen $8,000 lacagtaasna wuxuu ku shaqo geliyay laba shaqaale oo kale 1965 waxay gaadhay faa'iidadoodu $20,000 waxayna furteen dukaan cusub oo ku yaala Santa Monica waana dukaankoodii koobaad ee rasmiga ahaa ee lahayd shirkadda Nike inta uu Phil xooga saarayay suuqgeynta kalena Phil wuxuu ku mashquulsanaa curinta fikrado cusub Phil waa qofkii koobaad ee soo saaray ciyaarta joggingka loo yaqaano guud ahaan caalamka waxa uu ka alifay buug waxayna ahayd 1966 markuu alifay buuggaas kitaabkaasna waxa la iibiyay in ka badan 1 milyan oo jeer shirkadda Blue Ribbon Sports ama PRS si guud ahaan waxay noqotay shirkaddii koobaad ee iibisa kabaha Jabaaniiska Mareykanka dhexdeeda wuxuu isku dayay Phil inuu helo fikrado cusub mar walba ay kaba ka yimaadaan shirkaddii Onitsuka Tiger wuxuu isku dayay inuu ka furo ama kala furfuro mid ka mid ah kabayaasha si uu ogaado sida ay u samaysan yihiin mararka qaarna isagoo isku dayay inuu ku kordhiyo waxyaabo yara buusha oo kabaha qofka yara dareensiinaya wax raaxa ama isagoo ka tuurayay waxyaabo miisaanka qofka ku culeysiinaya ama kabaha miisaankooga culeysiinaya si uu uga dhigo kuwo fudud isagoo dib u habeyntaana dib ugu diray dalka Japan si ay marka dambe u isticmaalaan fikradan taasna waxay ahayd caawimaad 100% uu caawinayay shirkadda Japaaniiska disaynada ugu fiicnaa oo Phil design gareeyay waxay ahayd designkii uu design gareeyay kabaha Cortez oo noqday kabayaashii ugu iibka badnaa xilligaas waxayna ahayd 1968 waxaana sababtay taas ciyaarihii Olombikada ee xilligaas socotay ee ay martigelisay dalka Mexico kabaha cusub ee Phil dartood waxay shirkaddu xaqiijisay faa'iido kor dhan $300,000 1969 laakiin Phil iyo Phil waxay soo wajaheen
ama waxaa soo wajahay dhibaato aad u weyn intaa kadib. Kabuhu waxay heleen suuq aad u weyn taasoo u saamix weyday in ay waxaasoo dalabada kaafin waayeen. Safar walba oo Japan ka soo gala waxay sii iibsamayeen joogsi la'aan. Shirkadda Japanna waxay soo dirisay dalab kooban, sababtuna waxay ahayd in dalabka dalka Japan ay aqlabiyadda siinaysay oo dalabka Japan marka uu dhamaado wixii ka soo hadha ayuunbay Mareykanka keenaysay. sidaa darteed Bale iyo Phil waxaa qasab ku noqotay inayna ahaan kaba qaybiyaal oo kaliya oo looga baahan yahay intaa in ka badan. maadaama uu ahaa Bale kii kabahaas design gareeyay, waa u suurtagal in shirkadda Bear-As ay la saxeexan karaan heshiis marka uu dhamaado heshiiskan ay la leeyihiin shirkadda Japanese ee imika. oo nasiib wanaag heshiiska ay la lahaayeen shirkadda Japanese wuxuu dhamaanayay 1972 oo ka horreeyay Olombiyadii soo socday xilligaas, taasoo lagu martigelinayay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, taasoo ahayd fiilmid haysta waqti aad u badan oo isku diyaariyo. 1971 ayay bilaabeen shaqada calaamad ganacsiyeedkan. mid ka mid ah shaqaalihiisa ayaa soo bandhigay magaca Nike. Nike-na waa magaca shakhsiyad Greek oo legend ah. intaa kadibna waxa uu baahday logo oo leexday mid ka mid ah jaamacadaha, waxaana ka codsaday Ronald Wilson oo dhiganaysay xagga design-ka inay u design gareyso logo qiimo dhan $35,000. waxa uu ku helay shirkadda Nike logada ay imika haysato. logadiis markay diyaar noqotay kadib waxa uu Phil noqday mid u diyaar ah Olombiyada, laakiin markan maaha kii suuqgeeyaha ama kii kabaha qaybinayay ee u shaqeynaya shirkadda Japanese laakiin waa isagu mid aastay shirkad u gaar ah, isagoo gacantana ku haya wixii uu soo saaran lahaa ama wax soo saarkiisa shirkaddu ay gacantiisa ku jirto. waxaana ka xaqiijiyay guulo aad u waaweyn. graafkan waxaad ku arki kartaan saleeskii uu sameeyay sanadadaas oo dhan. farqigana waad arkaysaa u dhaxeeya markuu ahaa mid kabaha u qaybiya oo dib ugu sii iibiya shirkad ay leedahay Japanisku iyo marka uu sameysay shirkad u gaar ah isaga. maalintii ilaa imikana shirkadda Nike waxay ku sii horumaraysaa horumaro isdaba jooga. markii taariikhdu ahayd 1989 shirkadda Nike waxay noqotay shirkadda ugu weyn ee soo saarta dharka sportiga guud ahaan dalka Mareykanka, iyo suuqgeynteeda aad u cajiibka ah iyo weliba saxiixyada ay la saxiixato لاعبين waaweyn ee aad caanka u ah. ilahay shirkadda Nike gaadhina waa mid aad u muuqda oo guud ahaan caalamka oo dhan laga wada arkayo. daawadayaal muuqaalka maanta intaas ku eegyahay, fadlan hadaa channelka ku cusubtahay subscribe saar, videogana like saar, waxay noo tahay dhiirigelin. commentigana noogu soo sheeg waxaad ka faa'iiday qisadan. intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono. Peace.